saynisyahankii ugu horreeyey ee dunida ogaaday maabka adduunku nooca u eg yahay. He was one of Somali scientists la odhan jiray Master Bull. saynisyahankii koowaad ee dunida ee ogaaday maabka adduunku nooca u eg yahay waxa uu ahaa ninkaas Soomaaliga ah. haddaynu imika magaciisiisna ahno sheega ku heshiin mayno bahal qabyaalad la yidhaah baa jirta. waxaynu Soomaali ahaan u daysanaynaa inuu Master Bull ahaa. saaka waxay ii farxaday inaan idinkala soo qayb galo daabuurka hablaha dugsiga sare Salama Schools. aad iyo aad baan marka hore u salaamayaa maamulka iyo kormeerka iyo macallimiintaba. kolley anigu jiheey ahaan halkan umaan soo istaagin inaan ardayda ama macallimiinta wax badan dheerahay, laakiin waxaa laga yaabaa inaan ardayda systemka uga soo yar horreeyo. intii yaradeen systemka idinka soo horreeyey ayuun baynu kala faa'iidaysanaynaayee aqoon badan oo aan idin dheeray oon halkan la soo istaagay ma jiro. markaa waxa weeyaan waxaynu ka hadlaynaa ama aan awoodda ugu badan saaraynaa waxay noqon doontaa afka. afku waxa weeyaan af waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo wax jara ama lagu gooyo waxaa la yidhaha halka uu wax ku gooyo waxaa la yidhaha af. weel kasta oo wax lagu shubana halka lagaga shubo waxaa la yidhaahdaa af. qof kasta oo bini aadama ama xayawaanba ha ahaadee halka uu wax ku cunana waxaa la yidhaahdaa af. marka aynu hadlayna halkaynu ka hadallana waxaa la yidhaahdaa af. markaa afku aynu ku hadlaynaa dadyowga qaar ama luuqadaha qaar marka ay u bixinayaan waxay u bixiyeen af. qaar kale carabka ayay u bixiyaan, qaarna codka ayay u bixiyaan. waa lagu kala duwan yahay. qolyaha kushitiga ah ee aynu ka mid ka nahay badankoodu af bay yidhaahdaan. waa yahay afku muhiimadda uu leeyahay haddaan erey ku soo koobo waxa aad af kale ka baran kartaa intaad afkaaga ka taqaano. iminka 100 erey oo af Soomaaliya oo aanad ingiriisigoodii karanaynin ayaa jira. ereyga marka aad af Soomaali ku garanayso ayaad raacdayn kartaa ingiriisi maxaa lagu yidhaahdaa. markaan heemaar garanayo qof aan heemaar garanayn haddaan ku idhaha ingiriisi maxaa heemaar lagu yidhahdaa dee ima sheegi karayo. horto inaan heemaar isaga uu gartaabaa ka horraysa, dabeetana uu ka baadhay luuqadda ingiriisigu heemaar ma leedahay. waxaan uga socdaa nebiyullaahi aadam calayhi salaam. ugu horrayn waxaa la baray afafka magacyadooda oo dhan baa la baray. magacyadii afafka ee la baray nebiyullaahi aadam tartankii uu malaa'igta la galay iyaga waxaa la weydiiyey magacyada sheega. markii ay garan waayeenna nebiyullaahi aadam baa sheegay. halkaa macnaha aynu kala baxaynaa wuxuu yahay inuu magacyada luuqadaha adduunka ka jiri jiray iyo ka jiri doonaba qaar baan weli luuqadihii dhalan sida aan dadkii qaar u dhalan, qaar baa dhintay sida ay dadkii qaar u dhinteen, qaar baa jira sida ay imikaba qaar u jiraan. marka nabiyullaahi aadam
asmaadaa la baray asmaada waxa ka dhasha afcaal ama ficilo ayaa ka dhasha sidii aadan xaawo looga jeexay ayaa asmaadana ficilada looga sii jeexay dabeeta aadam iyo xaawi sida ay bini aadamka iskugu dhaleenna ficilada iyo asmaada waxa ka dhashay labadaa dhexdoodana xuruuf baa ka dhashay luuqadii waxay ka koobantay ism iyo ficil iyo xaraf inaguna nebi aadan oo xaawo laga jeexay iyo ubadkiisii baynu nahay sidaa daraaddeed luuqad kasta oo dunida ka jirtaba nebi aadan ayaa ku hadli jiray calayhi salaam sidaa ay dadku u soo dhalanayeen ay qoomiyada iyo u kala noqonayeen dalal iyo dad kala midaba iyo dad kala duwan ayay dabeetana luuqaduhuna kolba dhan isku raacayeen oo ay u korayeen qaar badan oo kaloo dhalan doonaana way jiraan markaa ummaddu waxay baaba'daa marka afkeeda qof ku hadlaya la waayo inta la hayo hal qof oo afkaa ku sii hadlaya ummaddaa cid baa ka nool weeyaan soomaali baynu nahay soomaali marka aynu soomaali nahay waxaynu soomaali ku nahay waa luuqaddu hadday meesha ka baxdo oo la waayo cid soomaali ku hadashaba waxa la ilaabayaa dadka soomaali la yidhaahdo muddo waxaa sii socon doona dad jiri jiray oo soomaaliya bay ka soo jeedi jireenoo afkoodii baaba'ay luuqadaha adduunyada qaar baad arkaysaa iminka in lagu odhanayo islaantii ugu dambaysee ku hadli jirtaa beri dhoweed dhimatay af noocaa soo jiri jiray buu ahaa waxa weeyaan ardayay afkiinna oo aad awoodda saartaan waxaa idinka caawin doontaa sida aad u fikiraysaan in ay ka ballaadhato inta ereye aad taqaano in leeg baad fikiri karaysaa inta ereye aad taqaanaa intay leeg yihiin ayaad fikiri karaysaa markaa inaad badsato afkaaga ayaa muhima mar walba waxaan idinku dardaarayaa ama muhiimadda koowaadaan ka hadlayaa inay tahay afku waxa uu leeyahay tix iyo tiraab hadal iyo hawraar buu leeyahay hadal iyo hawraar mahmaha badan oo hadalkaa ka soo arooray baa jiro waxaan odhan jiray markaan macallinka ah hadal dheh ama dhegayso hadal iyo hilbaba kala qalan hunnu hadal maaha himbiriirsina waxarag maaha xigmadda noloshu waa 10 9 waa aamusnaan midhka soo hadhayna waa hadal yaraan waxaa ii sharaf ahaa 8 sannoon dugsi sare macallinka ahaa inaanan weli intan dhangad qaaday arday ku dhufan fasal aan ku jirana aanu arday ku hadal waxaa ka dhasha hadal iyo hawraan markaan ku leeyahay hawraarta ama tixdu waa sugaanta waxaa la yidhaahdaa sugaani waa iidaanka ama koosaarka hadalka sugaantu markaynu ablaablaynayno buugganay aad ugu qorantahay oo aad ka doonan doontaan sabadoon baa la yidhaahdaa 2010 baan soo saaray sidaa ku heshaan baaba adag imika laakiin ciddii heshaa way ka faa'iidaysan kartaa sugaantu waxa ay u kala baxdaa baa la yidhi sugaan dhaba iyo sugaan meel awaala sugaanta dhabta ah waxaa ka mid a in wakhtigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimaha cuudku leeyahay sabool caydha baa garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiyaa garan dhallaan iyo carruurnimo duq ciroobay baa garan sugaanta nooca u taalla inuu gugucu doon yahay cid jilaal helaa garan in colaaddu halis tahay nimu cadow qabtaa garan colaad nin ugu aqoon badani ma jira ninka cadow gacanta ku hayo in colaaddu halis tahay nimu cadow qabtaa garan aayadaha cibrada sida caalimkii dhigtaa garan waalid iyo canaantii agoon ciirsilaa garan waayahay sugaantaasi waa sugaan dhaba sugaanta dhabta ah
heestaa markaan samaynayay in wakhtigu cajiib yahay yaa sugaan dhaba baan sameeyey tayda markaan ka baxo tusaalayaasha sugaanta dhabta aan ka soo qaadanayo waxaa ka mid a waa ayaanba ayaan nin aroosanaya ninna iilgelaya soo hadal dhaba maaha ifka waxaad la joogtaa jannaduu ku geeyaa amase naarta jahannamo labadaa midunbuu ku geynayaa soo maaha waayahay waxaa ka mid a deeqda waxa la yidhaahdo markaan ka hadlayo deeqdu inay cajiib tahay haddaan shaaca ka caddeeyo waa cadamo eebbiye rasuul camalfalkiisii ilaahay baa deeqsiya ilaahayna inoomuu soo dirin nebi bakhayla waa cadamo eebbiye rasuul camalfalkiisiiye waa badbaado caamiyo gargaar cuudka barakayne waa casumad magac loo khalqigu kugu ciseeyaaye sifo weeye lagu caanbixiyo caado madaxeede waa calaamad geesigu sitiya gob iyo caadkeede burji weeye laga caagoo ceebta kaa jiree waa cumaamad lagu baajin kara dirir colaadeede waa ciidan kula howlgaloon cidi dareemayne waa wanaag cid lagu taartay oo laysku celiya intaaba waxaa ku sifoobay ereyga deeqda la yidhaahdo sadar kasta oo ka mid a sadarrada aan idiin sheegayey waxa aan ka soo xawilay aayad ama xadiis sadarradaa ku saabsan deeqda marka lagu idhaa deeq iyo sooryeyn iyo muunayn iyo milgeyn iyo waxyaalaha sadaqad iyo waa isku wada mid waayahay waxaa jirta qof kasta oo idinka mid oo ardaydan ka midii hankiisa inuu meel ka mid xafiisna ahaadee meel yar hogaamiyaabaa ku jirta hogaamiye kaste oo deeqsiya taariikhda ayaa xusta hogaamiye kasta oo bakhaylana taariikhdu hoos bay u dhigtaa hadduu doono haba ka sarreeye tusaale ahaan hadduu doono ku gaalaba ha ahaado waa aragteen fircoon inta lagu soo qaatay qur-aanka fircoon meel yar buu maamulayey nabruud oo intuu doono ay boqortooyadiisu ka weynaydna dhowr waxaa naf lahayn baa qur-aanka lagu soo qaatay labadoodaa gaal waxaa kala fadilay fircoon deeqsi buu habaalayay marka qof kasta oo deeqsiya aad iyo aad bay diintu u karaamaysay in wax la bixiyo diinteennu waa muhim bay ka tahay ugu yaraan ardaynimada lagu bartaa inaad deeqsi noqoto haddaad deeqsi noqon weydo ha dhowtoole ma noqon doontid mid wax maamusha ama ardayad wanaagsan ama hooyo wanaagsanba oo ummadda u siman tahay oo la tixgeliyo waaye intaa haddaan halkaa kaga baxo sugaanta dhabta al intaa yara tusaalaha waxaan ku dari lahaa ma og tahay curyaankaba caga looma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwan carara yeelada inay ku cilmi qaataan waa sugaan dhaba indha bururay labadooda baal bidhiq ma daayaane mar haddaan bidhaan lagu arkayn waa barkumataal waa sugaan dhaba sugaanta haddaba mala awaalkaana maxaa ka mid ah wadnaha ay saranoo sanbabada ay qalanoo dhiigga saydhinaya waaye maxaa ka mid a sugaanta mala awaalkaa waxaa ka mid a hadduu beerku qaybsamo badh baan adiku siin laa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli laa kaagana waan la bixi laa waayahay sugaanta malaawaalkaa waxaa ka mid a malaa'igta naarta iyo jannadu way gu murantaa waxaa ka mid a samadaan mushaaxaa sidii meleg ilaahay kurka sare haddii laydin jaro kuwabka meermeersha sugaanta noocaas oo dhan waxaa la yidhaahdaa waa sugaan mala awaala baleegay kama dhaco darmaan yahay cashaqani dhibaya cilmikii qabriga dhigay cali sugula dhaawacay cabdiqays dhabaan dhabay cagaf cagaf ka dheelmaday dhakhtarkii jacaylkiyo cabdi iidaan dhex qaadee inaxaashi dhamaciyo hadraawina shullaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey dhodaan iyo huryiyo bidde ka samaystay dhabbahee waa beri dhammaan helay sugaantaasoo kale inkastoo xus ku jiro oy ali gori tahay haddana waa sugaan mala awaal ku jiro sugaanta mar labaad ama qalab kale haddii aynu qaadanno waxaa loo kala saaraa
sugaan la dhaxlay iyo sugaan la curiyey. sugaanta la dhaxlay waa tii ummadii hore laga soo gaadhay. waxay tidhaahdaa adhi baa laga hadlaya. adhi waxaa la yidhi adhiyow yaryare waxa kaa yaryari ma yuraan yurbaa ma yacgeensalaa. adhi waxa u kala baxay idayo riyo. idihii waxaa la yidhi galaala ilmaha gosha geliyo geed hadhweyn iyo galoolu hadhge. riyihiina waxaa la yidhi garoy garadaa oo garbacastaa adna giirooy ka guweynide gardarrada daa. idihii waxay dhaleen maxay dhaleen idihii naylo. naylaha yaryari naylaha yaryari naylaha yaryari waa wiil dhashee waa wiil dhashee maa loo wanqalo. riyihiina maxay dhaleen ya reerka iyagu beri guur haawiye guuriyoo galbeed qabay waxaraha walla yidhi wadi maayo baan idhi laba qaare layqaad laygaga qalbowsi wadayoo wadaan waday tiriyoo mid baan tabay ina timacas baan tabay. waa waxarihii. waxaro balaasnaylo maxaa la yidhaahdaa maqal. maqal baa la yidhaha. waxaa loogu heestaa iyadana maqaley warraay in cali la dilay. waxa ay loo sheegayaa qoofayn baa la yidhaahdaa. waxaana ku hadlayay oo dhan waa markaad waxaan qof ahayn sidii qofka ula hadasho. yaa markaa maqaley warlaay ma lagu warramay in cali la dilay oo cumar la dilay oo waran dhul galay uu dhiiqulqulay baa la yidhi. dabeetana iyadiina way u jawaabtay. qoofayn waxaa la yidhaha marka wax aan qof ahayn sida qofka loola hadlo ama looga hadliyo ama loo wada hadashiyaba. waxa ay tidhi dabeetayadana yaa ii warramay ma walaalkaybaa weli hoose iyo waaleed ka yimid. waxaa meesha ku jirta oo ruud hoos soo cararayaad macnaha kala baxaysaa in xilligii cumar binu khadaab iyo ay jireen iyo cumar iyo caliyo in ilaa xilligaa ummaddeennu islaam ahayd buu inoo sheegaysaa. waa ruud hoosoo adoonis la doonaya inaad la soo baxdo xilligaa inayn muslin ahayn ayay inoo sheegaysaa heestan la yidhaahdo heesta maqasha oo ah sugaan la dhaxlay oo aynu ka soo gaadhnay dadkeennii hore. sugaan la dhaxlay waa sugaanta aan la garanayn ciddii tirisay iyo goortay tirisay iyo meeshay ku tirisay toona. waayahay intaa maxaa ku xigaa on ilaabay adhigii sumal. sumalow darbane naylaha duduuc hee oo doo xaggee oo dacawadii dabada humbullayn yay kaa daldalan yay kula dulmarin. waayahay orgi baan ilaaway. dumarkaa nacab orgigo waxay yidhahdaan orgi weynow orgi weynow orgi weynow aabbahaawaa aabbahaawaa oo indhaha beel. marka disisadi waxaa loogu heesay sidaa. sugaanta loogu heesay waxaa la yidhaha sugaan la dhaxlay. haddii aadan geel loo tallaabo oo loo heesayo lo la tago kabadda la tago maxay cawska aloolka beenyada waxaas sugaantaa loogu heesaynu naqaanoo dhan waxaa la yidhaha sugaan la dhaxlay. sugaan la dhaxlay waxa macnaheedu waxa weeyaan waa sugaan dan guuda oo aan la kala lahayn sida aan hantida danta guud loo kala lahayn ee qarankuu leeyay ayay sugaantaasina sugaan ummaddu wada leedahay tahay. sugaan la dhaxlay baa jirto waa sugaan dan guuda. sugaan la curiyeyna waa sugaan dangaaro qofkii lahaabaa leh. waxaa imanaysaa sugaan la curiyey ardayd idinka mida baa tirisay ama macallinkiinaa tiriyey ama anigaa tiriyey ama abwaan horaa tiriyey iga weynoo dhintay. tusaale ahaan haddaa aragtaan nin abwaanahoo ka irmaan dibnaha ka arradan gacmaha talow ina suldaan afkuma u gudaa buu yidhahda. oday lama shiree erge iyo haddii afti loola tago talow aabaheed muxuu odhan lahaa. waayahay waa maxamed ibraahim macallinkaygii qaaliga ahaa. yaa muxuu yidhi macawaa macaanaa ma magool cusaybaa ma gorgoorkii ceegoo calcalyada barkadaybaa ma habeen caddaahoo balliyada cigaagani
casumeen xidigahoo cirka dayixi kaa jiray dhulka kaa cawarayba kaasina waa raximahullah waa maxamed xaashi dhamac gaariye waa qofkii iigu horreeyey aan ku bilaabay sugaanta buu ahaa anigoo arday oo idinka idinla mid ah oo fasalka form 2 dhigta ayaa maalin qura laysoo kiciyey dabeetana xaflad buu nageeyey gelinkii dambe waxaan soo rawaxay anigoo wax tirinaya oo isagii ku halqabsaday oo leh mudane maxamed gaariye miisaan warkaygo midhaha balqiime inay meel marayaan maamuus u eegiin macna yeelan karayaan maskaxdaada noo eeg idinkana waxaan idinka filayaa markaan idinka baxo inay qaar wax tirinaya idinka soo baxaan sugaanta la curiyey maxaa ka mid a markaan leeyahay inan yahay adaan kaa heloon kuwaan weynahaye inan yahay adaan kula hayaa kuuna heelanaye inan yahay adaa iga hantiyey haanka feedhahae adigaan hablaha taan arkaba kugu hilmaama sugaanta waxay ka mid tahay heesahan sameeyey marka waxaa ku qoran sugaan aan iska leeyoon anigu sheegan karo laakiin tii ahayd sacba naag tale salsalowyo sideeda u socoy ma sheegan karo ma odhan kara anigaa le geelu geel fulay geel halkaa marka laga arkayo ayaa la yidhaha waa sugayne sidii sagal roob oo sisan u daay waa sugayne maysa soo shubay dabeetana waana teennii waana tuwan tahay baa ku xigta soo maa marka sidaa loo horana maxaa ku xiga shifo ku absaar oo shar kuma leh haye maxaa ku sii xigaya dabeedna halihii irmaanaabaa lasoo seer ma weydiiya sagaalaha dirir waanu kugu simi haddaad seegtana waanu kaa socon yaa maxaa ku sii xigaya dabeedna awrkii qoodhiya ayra dheregtee uurdurbaan low arankay dilay baa ku xiga waaye maxaa ku sii xiga arankii oo lasoo horo awrkii qoodhiyo ayra dheregtee uurdurbaan low arankay dilay dabeetana maxaa geeli waa wada cabbay waa la soo celinayaa ma durduur buu doonayaayoo ma dareer buu u diyaar yahay marka dambena haddana waa lagu soo celiyey biyihii marakaad buu isku soo rogay anna rubadkaan ka ruc leeyahay dabeetana maxaa haddana ku xiga geelu geel fulay gaadhi maayee ha ka daba fulo maxaa ku xiga caraabaha dheer caraabaha dheer caraabaha dheer caafimaad iyo caana kugu galay dabeetana geelaa loo heesayiyo waxaasoo dhan waxaa la yidhahda sugaan la dhaxlay baa la yidhaahdaa sugaanta qofku iska leeyahayna waxaa la yidhaahdaa sugaan la garanayo ciddii tirisay waxaa la yidhaahdaa sugaantaana sugaan la curiyey mar saddexaad sugaanta waxaa loo kala saaraa maanso iyo sheeko maanso riwaayad sheeko luuqadaha qaarna mahmaaday ku daraan qaarna mahmaahdu waa qayb kolna sheekada gasha kolla maansada gasha bay yidhaahdaan waayahay marka sugaanta qaybtaa saddexaad ee maanso la yidhaahdo markaynu ka hadlayno maanso waxaa ka mida maanso gabay iyo maanso bur maanso gabay waa maqasheen gabaygu waa boqorka maansada boqorka maansadu waxa u bixiyey boqorka maansada nin la yidhaahdo xasan qalin la guddoomiye ku-xigeenka imtixaanaadka foonfoorka idinka qaada ayaa boqorka maansada bixiyey boqoradda maansadana waxaa la yidhaha heesta kabadda oo anigaa bixiyey waaye marka laga hadlayo qaybta maansada aynu ka sheekaynayno gabaygaa u boqora gabaygu boqor wuxuu ugu noqday hadda aad gabaydiida dhegayso cadceedda iyo waxaan iska ilow inaad gabaydo isku yar geli dabeetana way iska dhammaanaysa waxa weeyaan gabayga waxa uu leeyahay hokis iyo horis tusaale ahaan baleegay baadida nin baa kula dayday daalla kaa badantaa dambe horis baa la yidhaha intan inina hokis baa la yidhaha ragow kibirka waa lagu kufaa waa labadaasoo intaad tidhaahdeenna horis baa la yidhaha intan inina waa duni la kala iibsaday oo nala ogeysiin
baleegay gabay weeyaan heesa gabayaabaa jiro waxaa caynba cayn looga dhigay ha iscajabiyeen inan yahay adaan kaa heloon kuwaan weynahay tusma ila wadaaga aaminaay waan ku tabayaay waa gabayo loo tumayo kuwaas miis geeraarka miisiga loo tumana waxaa ka mid ah hee suleekhaay araggaagu nafta wow samirsiise midaad garanaysaana soo qabto aan anigu sameeyey taan haween ka tusmaystaay nacab kaama tab qaado tala kaama habowdo guuli kaama tasawdo tafantoof iyo baahi midna kuuma timaado rabbi toogada xoog iyo taagga kaama xayuubsho tacab kaama khasaare walaalkaynimaan u haystay muxuu wadda ii fadhiistay waa bad kale marka geeraarkuna waka gabayguna waa sidaa waxa meesha taalla bur maansaburna waxaa la yidhaahdaa buraan bur iyo jaac bur weeyaan burkaanaaba ku soo daray sugaanta laakiin waxaan ogaaday in buraan iyo jaac ay walaalayihiinoo jaac bur iyo buraan bur inay laba walaalaa yihiinoo labaduba ilmo bur yihiinoo labadaba magacooda bur baa ugu dambaysa soo maaha jaac bur iyo buraan iyo jaac soo maaha burku wuxuu kala baxaa buraan iyo jaac labaduba xeerka sugaantay burburiyaan labaduba xaraf raaca ma isticmaalaan midna raggaa tiriya midna dumarkaa tiriya maansabur baa la ydhaha caqligiina markaad la kaashataan soo macquul maaha wixii macquule sidaasa inaad u fiirfiirsato adba qaar baa kaa soo horbaxaya berri toolaa tidhaa halkaa ilaafka xil baa adigaba kaa saaran hamoodin in abwaankoo qura xil ka saarayy adiga iyo macallinkaaga iyo ummadda kale iyo abwaanka iyo madaxda iyo madaxweynaha iyo cid walba afka xil baa ka saaran qof waliba inuu kaalintiisa ka soo baxaa muhiima xilka ugu badan hooyada ayuu saarayey inta badanna iyadaa afka soo barta dadka inay waxa aan yar jeclay inaan isya dhex geliyo sugaanta iyo aan dee kolba mararka qaar inaan maansa idiin mariyo maansadii qur-aankaan idiin marinaya maansadaa qur-aanka waxay idinka caawin doontaa inaad fahantaan qur-aanka ilaahay qaybaha uu ka kooban yahay muhiimaddiisa ayaa fahmaysaan wax laydinkala hadlana qur-aankaa ugu muhiimsan midda labaad maansada waxaa ka baranaysaan qaab dhismeedka maansooyinka fudfudud loo tiriyo maansada qur-aanku waxay tidhi maansadan qur-aanka qumaati baa la yidhaha magaceeda markay ku qorantay buuggan maansadu badda ay ku jirta amaan ka sameeyey waxaa la yidhaahdaa badda maroodiga maroodi cadhoole markii col la sheego cadaada ku meel waa baddii salligo waxay odhanaysaa allaahumma sallim wasallim calaa xabiibi muxamed calayhi salaam waa facuulun allaahumma sallim maroodi waa isku bad dabeetana baddaasaan ka sameeyey waxay odhanaysaa hal qaafliya maanso hawraar qota dheer leh hal haysla qorsheeyey tixeer qaran taagan sugaan qasti weyn leh intaan ka qoraayey qaraar murtiyaysan intaan quminaayey heeraab qubanaysan intaan isku qaaday higaad qaradeed leh mid qaabka taneera hore uma qorshayne markaan qaradkeeda qumaati u saafo siqaaliya maaxda muxdeeda u qeexo adoo qara weyne waxaan qalqalloosho ama iga qabiix ma ammaan qumanaanin ma dhow qaban doona adoo qalbi fiican qumaati u fiiri dadyow qara weyne muhiimadda qaadir qur-aanka ku dheehay anoo ka qiraaya quluubtiiyo maanka markaan ka qisoodo haddii qalbigaagu qushuuc yar dareemo quwiilo xasuuso dadweyne qur-aanku war maaha qof keenay qabiil ma samaysan qoraa ma abuurin wargays qoran maaha
قرين كوما دودين أبوان ما قرشينين فنان ما قادين وذات قلن دوري dadka uma qormaynin nin qaad ku mirqaamay qowlu yiri maaha tiktor shan qof baadhay dawadu qoray maaha qabaana ma sheegin qowsaar kuma baanin qiraaliya maaha gargeed lagu qaaday qusuusan ma keenin wasiir qodobeeyay ustaad iyo qaari midnaan ma qorshaynin qaanuun laga reebay quruun hore maaha qoraal nabi maaha qataar sixir maaha qowdhiidhi ma sheegin tuqsoo qabax leeyay heshiis kuma qaadan dad qaarad ku noolna wax qayb waa maaha intaaba markaan kuli maaha qur-aanku dad weyne daliil qoran weeye dastuur quman weeye qowlkii rabbi weeye qaynuun alle weeye ilaah quwadiisa qiraal sugay weeye quduusalmacbuudku qastigu u abuuray waxaa qof ku uuman qarqoorada uunka kitaab qoray weeye khilaafna ma yeesho xaqiiqsa qur-aanka qofkii u rumeeya kalkiisa quluubta hubaa lagu qaata si fiican u qayba qiimaa u sugnaaday quwiila ogsooyey ninkiisa khilaafo qur-aanka raxmaanku khasaare ma waayo markaadse khusuusan kitaabkan qur-aanku intuu qare leegiyay qumaati u dhuuxdo inantii markii dhaweyd qur-aanka akhriyaysay way iga oohisay marka dad yow qaran weyne qur-aanka ilaahay markaad qaybinayso qaybi waxay u kala baxdaa tawxiid baa la yidhaahdaa qaybna waxaa la yidhaahdaa axkaam qaybna waxaa la yidhaahdaa qisas waxaynu ku horraynaynaa tawxiidka waxaynu ku xigsiinaynaa axkaamta waxaanaynu ugu dambaysiinaynaa qisaska dad yow qaran weyne barh baa ka qisooda qur-aanka ilaahay tawxiidka qur-aanka quwiila ku dheehay tawxiidka u qaybsan in qaadir u doortay cibaado u qaasa in loo qasti yeelo dad yow qaran weyne barh baa ka qisooda sifooyinka qaadir asmaada quwiile qaraarsamidooda qaybaha dunideenna habkuu u qorsheeyey waxaa qalab saaran quruxda ugu yeelay siduu qalinkiisu khilaaf uga dheeriyey sidaan qalalaase qof gaari sameeyey intaa uga qaadin sidaan qolo diiday korkiisa u qoomin midhkaa ka khasaarin allaa qani sheegtay wuxuu quwad leeyay dad yow qaran weyne qaynuunka ilaahay markaad qura eegto barh baa ka qisooda axkaamta qur-aanka quwiila ku dheehay axkaamta u qaybsan in qaadir u doortay cibaado u qaasa in loo qasti yeelo axkaamtii baa cibaadaad iyo mucaamilaad u kala baxaysa cibaadaadkii baan ku horraynayna waxaan soo qaadanaynaa shanta arkaanu islaam shanta arkaanu islaam markaan doonayo inaan sugaan kugu sheego maxaan odhanayaa hadday tahay qowlka qoftaa in rumeeyey hubaa lagu qaato ilaah qiridiisa laa ilaaha ila allah khushuucda salaada qadoodiga soonka sakada qof u baahan qumaati u siinta markaad qarash hayso qiimaha xajku leeyay ka qaybgelidiisa waa shantii arkaanu islaam dad yow qaran weyne axkaamta qudheeda barh baa ka qisooda macaamil quseeye qaynuunka hagaya qurumaha uman barh baa qodobeeya hanaanka iyo qaabka rug loogu qormeeyo lamaana isqaatay lamaana si qaable marqaadi asteeyey ka qayb galay shaahid qoys loogu sameeyo barh baa qodobeeya hanaanka iyo qaabka hubaal qabadsiiya lamaana qardoofo dhexdooda ka qiiqday in loo kala qaado qoraalka nikaaxa barh baa qodobeeya haddii nabar qooni qof gaadho korkiisa intaan laba qaylin qas loo tafaxaydan wixii u qalmaayey in la iskaga qaata axkaamta qoraysa barh baa qodobeeya intaan qudh la gooyey hadal iyo hilbaba hadal dhehma xigmadda noloshu waa 10 sagaal waa aamusnaan midhka soo hadhayna barh baa qodobeeyey intaan qudh la gooyey qardoof ka abuurmin hub la iskugu qaadan qabiil ku dhaqaaqin qabiil kala weerar haweenkuna qiiro gubaabiya qaylo dibnaa u kala qaadin ee aan la quweynin iblays qaladkiisa amaan la khilaafin qaynuunka ilaahay axkaamta qoraysa in la isku qisaaso tusaale ahaan halkan
waxaan ka jeclaan lahaa maca sacabkiina inaad aad u dhegaysataan halkaa qur-aanka markan ka hadlayo waxaan ka jecelay in aad loo dhegaysto waxaa ku jirta halkaa tusaale ahaan inan yar ibaa inankiisii ninba inankiisii in yaroo kale istireen laba ilig baa laga riday dabeetana labadii ilig markii laga riday ayaa inankii waxaa lagu yidhi inankii ilkihii waaba loo hagaajiyey waa loo xaqay iligiiba 5 halaad baa lagu xaqaa dabeetana inankii yaraabaa markii dambe ashahaadii buu kari waaye in ninkii inanka yar dhalay baa wuxuu yidhi inankaygii ashahaadii buu kari waaye ashahaadii halay xaqo ashahaadda maxaa loogu xaqaya ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamed rasuulullah buu kari waaye inankaygii halay xaqo marka loo xaqayo ardayow casharkaana iska sii baro waa intooda axkaamta hadhow iyo xaggaa u laaxataaye marka la doonaya ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamed rasuulullah inaynu xaqno ashahaadan waxaa laga dhigayaa xuruuftaa waxaa laga dhigayaa hadalkaa waxaa la odhanayaa ashahaadda me waxaa laga dhigayaa ashahaaddu waa hadalna qofku hadduu ka guuro dumar yahay 50keedii weeyaan hadduu nin yahayna waa 100kiisii inta nabar lagu dhufto hadalkiiba kaa guray 50kaagii baa la bixinayaa inanay marka ashahaadda haddaad kari weydana ashahaaddii baa imise xaraf weeyaan baa la odhanayaa xarfaa laga dhigayaa hadalkii xarfa marka laga dhiga waxaa noqonayaa alif ilaa ya unbaa 100kii loo qaybinaya ama 50kii dabeetana inta xarafeed kari weydaa lagaa siinaya halka xaqaaga ya dabeetana hadday qarmi weyda axkaamta qoraysa inaan xalqatoobin axkaamta qoraysa mag la yskaga qaato horweyn iyo qaalmayn qaadir baneeyey barbaa qodobeeya wixii qabanayay haddii qasnad buuxda nin qaafili taabto oo tug iska qaata adduun qolo leeday barbaa qodobeeya axkaam qoto dheeri quwiile u siiyey inay kala qaado hanaanka iyo qaabka u qaybsha hubaal ugu qaybsha wixii dhaxal goysa agoomaha qaadir duqii dhalay qaatay barbaa qodobeeya axkaamta qusaysa inay u gal qaado dad dayn kala qaatay marqaanta dhexdooda khilaaf ka abuurmay isqaanabid keenay barbaa qodobeeya si fiican u qeexa hanaanka iyo qaabka ilaahu qorsheeyey jihaad lagu qaado qufuururaxiimka kufaar qiri weyday dad yow qaran weyne qur-aanka raxmaanka barbaa ka qisooda qisaskii baynu gala imka qisasku waxay u kala baxaan taariikh iyo qeyb taariikhdu waa wixii hore horteen soo dhacay qaybkuna waxa weeyaan wixii naga maqan ee aan dhicin aynu sugayno barbaa ka qisooda wixii ifkan qoomandaraad ka qarqoostay intii qole xoogle quwiila halaagay intii qaran buuxa ku baaba'ay qaylo intay qolo laysay dabayl qof mareebi intii laga qoomay hanaanka iyo qaabka qof ruuxa la siiyey ee ay quruxdoodu qalfoof bahalowday intii kibir qoodhin qardheer uga duushay intii kufri qooqay rasuul quman diiday sala allahu calayhi wasalam intii kufri qooqay rasuul quman diiday intii qolo fiican quwiila hanuushay intaasi waa wixii horteen soo dhacay barbaa u qorshaysan ayaanta qiyaame qisooyinka yaalla si loogu wax qaato hadday tahay qoomka ay qaaf naga hayso ku qoofalay mawle qarnayna ku dayray ilaa qaran weyne galbeed qoraxdeenna qacwaagu iftiimay qudh looga arkaayo ilaa qaran weyne badaa lagu qaybshay qaybaha durdeenna ilaah qarqin doolo ilaa qaran weyne ay suurtu ku qaylin quruumaha gaadha ilaa qaran weyne ayaanta qiyaame dadkoo wada qaawa qubuuraha iilka qufuururaxiimku ka soo qufi doono ilaa qaran weyne qof baan camalkiisa kitaab lagu qeexay quwiila hor keeno oo uu ka sad qaado miisaanada qaadir ilaa qanigeennu dadkoo dhan u qaybsho in qaadir ka buuxsho cadaab qarqarhaysa cadaab barqabowyey barqaaciyo naariyey barqay la yidhaahdo hubaalna u qaybsan kuwii iska qaatay qof maalu dembaabo xaaraantana quutay agoonta qiyaamay ku qooqay adduunka qam eebba ku siiyo ilaa qanigeennu qumaatii u geeyo jannooyin qorshaysan kuwii dhab u qaatay qur-aanka raxmaanka waxaan u socdaa soomaalidii inaga horraysay ma dad aqoon-yahana bay ahaayeen
مسدد جاهلين بهاين جاهلين بهاين صوما يا انت اللي تاجنيت جاهلين بهاين قعدت تاجبه كو أي كله انت اللي تقول يا أنا بهاين انت ما كامستي واي هل example باني نوغا سو قادنا يا كوا أي هاين سوف أنتن أقل كالصومالي قاوارك تسومها أقل كالصومالي قاهي وحولي الشيبك أما قابك وأسميسان يهي بيتك وأسميسان يسومها وهي وحولي دي كولي globe of the world وحولي الشيب of the egg وهي وحوقل كالصومالي قاهي ليه هي لول يدقو longitude iyo latitude buu leeyahay Soomaha maabka adduunkuna waayay maabka adduunku waxa uu leeyahay equator iyo capricorn iyo cancer aqalka Soomaaliguna wuxuu leeyahay udub dhaxaad iyo laba udub xoog atmosphere-ku waxa uu gibil atmosphere la yiraahdo maabka adduunku leeyahay gibilka atmosphere-ka waxa uu ka kooban yahay hydrogen nitrogen oxygen iyo carbon aqalka Soomaaliga waxa uu leeyahay gibil la yiraahdo heriyo heriyaduna waxay ka koobantahay kabad iyo caws iyo alool iyo saan saynisyahankii ugu horeeyay ee dunida ogaaday maabka adduunku nooca uu yahay he was one of Somali scientists la oran jiray Master Bull saynisyahankii koobaad ee dunida ee ogaaday maabka adduunku nooca uu yahay waxa uu ahaa ninkaas Soomaaliga ah haddaynu imika magaciisiisna ahno sheega ku heshiin mayno bahal qabyaalad la yiraahdo jirta waxaynu Soomaali ahaan u daysanaynaa inuu Master Bull ahaa waayahay waayo haddaynu islaamka u magac bixiya qof walo Soomaaliyiin qabiilkooda noqdaa buu dooni doonaa dabeetana saynu isku haysano inaga dhex bixi doonaa laakiin Master Bull aqalka Soomaaliga Bull baa la yiraahdaa Soomaa magaciisana kaasaynu deeninaa saynisyahanku marka uu wax hindiso waxa uu u gudbiyaa ummadda waxa uu u gudbiyaa inuu qoro oo uu qoraal u gudbiyo ama sawir ku gudbiyo dabeetana please sawir ama qoraal inuu mid ku gudbiyo dabeetana haddii aan afkeenu muu qornayn xilliga saynisyahankeenaasi wuxuu wax inoogu soo gudbiyey sawirkuna labun buu noqdaa mid gacanta lagu sawiro oo warqad lagu sawiro iyo mid qori ama wax la mid laga dhigo dabeetana wuxuu inoogu sameeyay geedaheennii inooga sawira example ayaa idinka siiyey topigaasi waa topic dheer oo cilmiga sayniska iyo caqliga Soomaalida waa la yiraahdaa buug dhan baan ka diyaariyay mase doonayeen inaan halkan ku furfuro example ka iyo mid kamida waxa la yiri kitaab meel aan lagu akhriyay laguma furfuro oo waqtiga aynu haysanaaba inaanu buugga ka soo rogmin baa laga yaabaa waxa weeyaan kolley anigoo kana cararaya in ay cadceedu ardayda ku dhacdo